السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكتبة إسلامية مانتا وحي إديسو قد بنيسا درسي لبات. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أين كنت من سورة النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، waxaynu soo gaadhnay isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday awowgii cabdilmuطalib oo markaasi uu kafaalo qaaday adeerkii abi aalib. culamaai taariikh waxay wariyaan abi aalib inuu aada u jeclaa, xataa socdaalladiisa iyo majaalistiisa iyo meelaha u fadhiisanaya inuu kaxaysan jiray. waxaa la sheegaa inuu safar la galay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo yar oo 12 jir meelahaasi oo kala safarkaasi oo abi aalib shaam uu ku socday oo tijaaro ah, laakiin wiil yar oo sii kaxaystay buu markaasi ahaa oo 12 jir meelahaasi oo kala ah. imaam tirmidhi sidoo xadiidka ku soo warinayo waxa uu tilmaamayaa safarka markii uu ku jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam oo la socda adeerkii abi aalib iyo koox kaloo carbeed inay ku soo baxeen nin raahiba oo raahibkaasi oo baxiira la odhan jiray. raahibkan iyo magaciisa waa yani tadaarub ka tiro badan baa ku jira. jarjis waa la odhan jiray bay yidhaahdaan, sergis way ku sheegaan. cidduu ahaa waa isku khilaafaan waxyaaba badan, laakiin markaynu eegna xadiidkaasi tirmidiya inta ugu badan lemala sanadkiisu ugu roon yahay. ninkaasi raahibkaa bay u yimaadeen. raahibka markii ay la soo degeenna wuxuu gartay astaamihii nebiga calayhi salaatu wasalaam. dadku ka dhex baadhbaadhay, dabeetana wuu helay. wuxuu ku yidhi ninkani waa sayid alcaalamiin, waa rasuul ilaahay buu noqon doonaayo kale. maxaad ku garatay? su-aale bay weydiiyeen, dabeetana arrimuu sheegay. arrimuhuu sheegay waxaa ka mid ahaa dhacdooyin baan arkay buu leeyay nebi mooyaane cid kale ka suurtal gaar ahayn. wuxuu kaloo sheegay inuu khaatim nubuwa garabkiisa laga eego. nabiga calayhi salaatu wasalaam shaabad nebinimo ahba xaggan dhabarka kaga taalay garabkiisa oo timo qayb madow bar madow halkan ku taalla oo rasuulnimadiisa sheegaysay. taana ka baadha buu yidhi waa laga helay. dabeetana si fiican buu usoo dhoweeyey. waxaanu abi aalib u sheego uu ku yidhi markaas wiilkan mar dambe shaam ha usoo kaxayni, waxaan uga baqayaa romanska iyo yahuudda kadib riwaayadkaasi waxay sheegayaan abubakar markaa wuu celiyey. xadiidkan asalkiisa horta muran badan baa ka jira min xayu sanad iyo min xayu lmatniba, waayo matniga xadiidkaasi waxaa kusoo aroray in abibakar iyo bilaal ay la socdeen, laakiin waa waraan jirin. sida uu xadiidku u dhigayo matnigaasi sheegaya in abibakar iyo bilaal ay ku jiraan nuqaadul xadiid dhammaantood waa radiyaan ama iyada waa daciif. inta soo hadhay waa haabit bay ku sheegaan. si kastaba ahaatee wuxun buu sheegaya xadiidkani marka laisku wada daro inuu ninka raahibkaahi ka dhex arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam astaan tilmaamaysa nebinimadiisa uu una sheegay. laakiin marka min xayu sancat alxadiid marka lala qabto culamadu matniga iyo sanadkaba aad bay uga warwaramaan, aad baanay wax uga radiyaan inkastoo culamada baray sugaan. kollayba waxaan laakiin ka sugmaynin waxyaabahay mustashriqiintu isku dayaan inay ka tilmaamaan oo ay yidhaahdaan sidii qur-aankaba ay mushrikiintii carbeed sheegayeen inamaa yucallimuhu bashar, ama ay sheegayeen waxa uu cid kalo wax ka soo bartay, ayay qaarkood waxay isku dayaan inay yidhahdaan nebi moxamed ba calayhi salaatu wasalaam waxba looma waxyoona, ninkani waxoogaagi uu ka soo bartay ayuu dadka u sheegay. laakiin iyana waa hadal tiro aan sal lahayn, waayo nin safari 2 saacadood oo meel fadhiistay wuxuu nin ka dhagaystay oo weliba ilmo yaroo caruuro 10 jir ama 12 jir qadiyad nebinimo kama waranto. marka waa iska waraan runtii radinna u baahnayn, shaki kalena usii baahnayn. 2 saacadood ama saacad qadaa ama raashin la cunayo meel la wada fadhiyey baa wax lagagu bartaa. weliba aanay jirinna kitaab markaasi tawraad iyo injiishu maanta waa la helayaa tarjamaad carabiya. waagaa tarjama carabiyana ma jirin, oo intaasi dheertahay inuu nebi maxamedna waxna qori jirin waxna akri jirin. yani waa waxaan macquul ahayn in warkaasi oo kale la sheego. laakiin waxa unbuu tilmaamayaa warka cumuumkiisa marka la isku daro inuu ninkani ka arkayey sifaadkii ama astaamihii nebiga lagu garanayay. waxyaabaha taariikhda nebiga calayhi salaatu wasalaam qabla nubuwa ay ka tilmaamaan ragga taariikhda qoray waxaa ka mid ah inay soo wariyaan
inuu nebiga oo yar oo 20 jir meelahaasi inay dhacday dagaalkii la odhan jiray xarbulfijaar oo weliba xarbulfijaar araabica bay yidhahdaan yani 4 dagaal oo isku magacaabaa jiray bay yidhahdaan 4 dagaal waxay dhex mareen baa la yidhahdaa nimanka quraysh iyo qabiilkii weynaaye ay quraysh ka tirsanayd ee kanaana la odhan jiro oo wada socda xilfi wadaaga iyo niman la odhan jiray qayso caylaan labadaa qabiil baa dagaal la dhex mareen bay yidhahdaan dagaaladan xataa culamada taariikh waxay tilmaamaan 3 dagaal hore iska munaawashaat un buu ahaa yani waa la isu googoodiyey ama la isu hanjabay ama la isu yaro hub urursaday laakiin wax naf leh 3 hore ma dhicin baa la yidhahdaa kan afraad ayaa la yidhahdaa unbaa dagaal dhacay siday culamada taarikh wariyaan waaqidi iyo ibnu isxaaq oo aan sanad kusoo aroorin baa qisada laga wariyaa waxay yidhahdaan nin baraas la odhan jiray ayaa wuxuu laayay 3 nin oo qays caylaan ka mid ah yani kan hore waa qabiilka kanaanada la yidhaahdo ee qurayshina ka tirsanayd dabeetana ninkan isaga reer kale uu 3 nin ka dilay warkii baa yimi cukaad waa meel suuq ahayd oo tijaaro wax lagu kala baac mushtarayn jiray baa warkii soo gaadhay warku markaa meesha soo gaadhay ayaa laysu dagaal urursaday quraysh iyo kanaano oo dagaalkooda uu hogaaminayo bay yidhahdaan xarbi ibnu umaya ninkii la odhan jiray oo odaygii u daaweynaa markaasi ahaa iyo qolada kale ayaa dagaal dhex maray dagaalkaasi waxaa la yidhahdaa waxoogaa markii la istirayay markii hore waxay u muuqatay quraysh iyo kanaanaba in laga xoog batay gelinkii hore laakiin duhurayowgii meelahaasay soo rabaal celiyeen waxay u badiyeen markaa iyana markii dambe inay waxoogaa in badan ka laayeen laakiin casarkii goor ay ku dhadhowdahay ayaa koox quraysh ka mid ah ay dhexdhexaadin iyo wax isku dayday waxaa lagu heshiiyey markaasi in dagaalka la joojiyo ee meydkana la tiriyo wixii meydka la isdheeraado markaa diyo la kala qaato saas bay wariyaan culamada taariikh waxay riwaayadaasi markaa ibnu isxaaq iyo waaqidi ay ku darayaan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo dhalinyaro oo 20 jira joogay laakiin dagaalka muu gelin bay leeyihiin gamuunada ayuu adeeqadii u hagaajinaya uu siinayay laakiin wax ka asaxay ma jiro min xayث sanad iyana marka la eego wax ka asaxay masaladaas inuu nebigu dagaal ka qayb galay hore oo qabaa'ila wax ka asaxay ma jiraan culamada taariikh waxyaabaha dhacdooyinkii hore ay ka waramaan waxaa ka mid ah waxaa lagu tilmaamo xilfi lfuduul ama xilfi ayibiin xilfiga la yidhaahdo waa heshiis dhacay bay yidhahdaan dagaalkaa dabadi heshiiska kani isagu inuu dhacay axaadiis sugaysa ayaa jirta oo weliba nebigu uu ka qayb galay inuu nebigu ka qayb galay way asaxday in sha allahu tacaala waana kuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayey inaanan shahidtu xalfa almutayibiina maca cumuumati waana ghulaam fama axabu ana lii xumra nicma waana ankutu ama riwaayaadka qaarkoodna ay tilmaamayaan laqad shahidtu fi daari cabdillahi bni judcaana xilfa ma uxibu ana lii bihi xumra nicm walow idduciya bihi fi lislaam laajabt walow udciya bihi fi lislaami laajabt yani waa xadiidkii sheegaya inuu nebigu lahaa alayhi salaatu wasalaam heshiis baan ka qayb galay adeerada iyo dadka kayaga aan kala qayb galay heshiiskaasi waxaa lagu qabtaa la yidhi gurigii ninkii la odhan jiray cabdillahi bnu judcaan cabdillahi bnu judcaan waa nin maalqabeenadii ugu waaweynaa maka ka mid ah waa nimankay odhan jireen koobab dahabay wax ku cabaan ninkaa gurigiisa lagu qabtay laakin waxaa la yidhahdaa nin wanaag badan buu ahaa marka samaka talinta iyo wanaagga la eego ninkaa gurigiisa heshiiskii lagu qabtaan ka qayb galay buu nebigu yihi alayhi salaatu wasalaam heshiiskaa inaan ka qayb galayna yani aad buu nebigu ugu faraxsanaa wuxuu leeyahy maan weydaarsadeen gela casar maanta haddii laygu yeedhana heshiiskaa mar labaad waan geli lahaa buu leeyahy heshiiskana waa heshiis ku saabsisan cadaaladana qofka muslimkii mar walba uu taageeraya waxaa la yidhahdaa asbaabbay keenaan culamaai taariikh ay sheegaan waxay yidhahdaa nin qabiilka zubayd la yidhaahdo ka tirsan ayaa alaab maka keenay dabeetana waxaa ka iibsaday ninkii alcaas ibnu wail oday la odhan jiray sahmi odayadii quraysh ugu madaxaadka ka mid ah alcaas ibnu wail baa waa camar ibnu caas abihi caas ibnu wail baa ka iibsaday baa la yidhaahdaa caas ibnu wail markuu ka iibsadayna lacagtiibuu hore u siin waayey dabeetana ninkii waar adduunkaygii hala siiyo uu xoogaa sheegay waa loo dhegdhigi waayey ninkani maadaama uu sahmi ahaa qabaa'ilka ay xilf wadaagga ahaayeen buu u tegey reer cabdidaar iyo jumax iyo cadiy iyo oo waxaa jirta qurayshi qusayi markuu dhintay ayay isku qabteen rifaadada iyo ciddii qabsan lahayd iyo siqaayadii ama zamzamkii cidda dadka ka waraabinaysa iyo xujaajta cidda waraabinaysa iyo waxaasaa la isku qabtay marka la isku qabtay ayay quraysh dhexdeedii ilmo qusayi baa xilfi kala samaystoy reer bani cabdidaar iyo
kooxda kale ee reer bani cabdimunaaf ayaa isqabtay qabaa'ilkii quraysheeda kalena iyagay xilfo wadaag la wada kala yeesheen laba xilfo iska macruufa buu ahaan jiray markaa jiray kooxdii markaa ninka kan alcaas ibnu wail sahmi buu ahaa markaa waa reer bani cabditaar qoladii xilfo wadaagga la ahay ayuu u tegey waxba waa loo qaban waayey waxay sheegaan markaa wuxuu fuulay baa la yidhaha jabal abu qubays dabeetana gabay uu dulmigiisa ku sheeganayo sida loo dhacay buu tiriyey bay yidhaahdaan gabaygiibaa waxaa maqlay bay yidhahdaan zubayr ibnu cabdilmutalib dabeetana wuxuu yihi war ninkaasi wuxuu sheeganaya wax laga taga maahe hala wada hadlo saasi daraaddeed baa guriga ninkan laysugu yimi ba la yidhi xilfiga sababtiisu kaasay ahayd baa la yidhaha laakiin xilfigu sababtiisu inay ka ahayd waa iska dhacda taariikhdu ay sheegta uun laakiin intaas saxda aynu haynaa waxa weeyaan in xilfiga kani jiray oo guriga cabdillahi ibnu judcaan uu ku jiray oo xilfiga asalkiisuna wuxuu ahaa waxa wada galay bay yidhahdaan reer banu hashim iyo bani lmutalib iyo asad ibnu cabdilcuza iyo bani zahra iyo taym bani mura intaasoo qabiil baa xilfigan wada galay bay yidhahdeen daartii cabdillahi ibnu judcaan ninka la yidhahdaana lagu wada galay waxaanu xilfigaasi ku salaysnaa una oo ahaa maka gudaheeda qof lagu dulmiyaa inaanu jirin ilaa iyo inaynu uhiilino mooyaane awel hiilku dee tolun buu ahaa ninkii tollana tolkii unbaa uhiilinayey ninkii tollaana waa la dafirayay laakiin xilfigani wuxuu ku salaysan yahay isagoo cadaalada ah cid kasta oo dulmi magaalada maka waa inaan dulmi ka dhicin cid kasta oo maka joogto oo dulmi laga galo inaynu u hiilino waxaana la yidhahdaa ninkana way uga soo qaadeen adduunkii alcaas ibnu wail ninkii la odhan jiray ninkii zubaydiga ahaa zubaydi waa reer yamaneed yani nin ah way uga soo qaadeen xoolihiisii xilfigani kaasuu ahaa waxyaabaha markaa intii taariikhdii nebiga calayhi salaatu wasalaam qabla nubuwa la sheegay uu galay waxaa ka mid ah heshiiskaa raggii galay ayuu ka mid ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yaraantiisii dee adeerkii buu iskala joogay abi aalib nimaan adduun badan inkastoo odayada quraysh wax la weydiiye uu ka mid ahaa laakiin nin caruur badan oo aan adduun badanna lahayn ayuu ahaa marka waxaa muuqatay xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku caawinayey mararka qaarkood inuu shaqeeyo isagoo inan yara oo uu xoolaa raaci jiray maka gudaheeda waa ka axaadiista saxiixa uu tilmaamayo inuu shacbu maka calaa qaraariid inuu ku raaci jiray adhiga ama xoolaha markii uu nebigu waxoogaa leekaaday ee uu nin dhalinyaro fiican noqdayna baabka tijaaradda ayuu u weecday oo waxaa la tilmaamaa inuu tijaaradda ka qayb galay masalan xataa ay tijaaro wada lahaan jireen ninkii la odhan jiray asaib ibnu abi saib almakhzumiy oo xadiidka masalan abi daawud uu warinaya iyo ibnu maaje iyo musnad imaam axmed ba ku sugan waa ka tilmaamaya ninkaasi markii uu yimi yowma alfatx maka markii la furtay maalintuu ninkaasi u yimi wuxuu lahaa marxaban biakhi wa shariiki soo dhawo walaalkay iyo ninkii shariigaan wada ahaan jirnay yani tijaarada wada lahaan jirnay culamada taariikhdu waxay sheegaan markuu dhowr iyo 20 jir marayay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu safar kaxeeyey shaam ku socda oo gabadhii khadiijo la odhan jiray ay lahayd waxa laaliya waxa ku saabsan khadiijo iyo guurkeeda riwaayaadka ku saabsan oo dhamina inta ugu badan la iyaguna waa riwaayaadkaasi ahlu siyarku ay wariyaan laakiin culamaa alxadiis sanad ahaan ma sugaan laakiin cumuuman iyada mid waa dee la hubaa muran kuma jiro nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu khadiijo guursaday khadiijo inay ahayd haweenta u dhashay caruurtiisoo dhan marka ibraahim laga reebo ibraahim mariya alqibtiya ayaa dhashay laakiin 6dii caruur ee kaleba waxa u dhashay khadiija in ahayd axabu nisaa ama haweenka kuwa ugu jecel yahay bal ee nebigu calayhi salaatu wasalaam markastoo lasoo hadal qaado wanaagay u samaysay inuu in badan xasuusan jiray xataa caaisha iyadoo ay dhimatay bay kama sayrtay yani khadiijo aan noolayn ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu u hadal hayn jiray hadduu wax qalo ama uu xoolo bixinayo khadiijo wuxuu xusi jiray dadkii la asxaabta ahaa haloo geeya waxaas buu odhan jiray waa khadiijo asxaabteedii ama qaraabadeedii ama dadkeedii iyadoo dhimatay khadiijo aad nebigu calayhi salaatu wasalaam uu odhan jiray waxay ii gashay ma abaalgudi karayo ilaa xad caaisha maalintii dambe iyadoo inan yar ay ka hinaastoy ay tidhi islaan qawlo lacabsun baad hadal haysaa ilaahay inan yarna kuugu bedelay bay ku tidhi dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi alla iguma bedeline waxay ii samaysay cid ii gashay ma jirto yani iyadoo dadoo dham ii beeniyey ayay i rumaysay naf iyo maalba waa ila qaybsatay markaasuu nebigu wuxuu tirinayey waxyaabahay khadiijo u gashay 6dii caruur ee marka ibraahim laga reebana 4 wiil 4 hablood iyo 2dii wiilba yani 4tii wiil ahaa qaasim oo caruurta ugu weynaa iyo cabdillaah oo u yaraa 2daa wiil
iyo afar hablood oo ah zaynab iyo ruqiya umu kalsuum iyo faatima lixdaa caruurana way u dhashay nebiga calayhi salaatu wasalaam intaan risaalada lagu soo dejinna labada wiil iyaga hore ay u dhinteen afarta hablood laakiin afartuba way islaameen islaamkana way soo gaadheen laakiin afartuba marka faatima laga reebo saddex isla nebiga noloshiisii bay dhinteen nebiga calayhi salaatu wasalaam wax caruura uu dhalay oo uu dunida kaga tegay faatimaa jirtay faatimana 6 bilood kadib bay dhimatay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu caruur dhalay oo dhan faatima ugu dambaysay faatimana waxay geeriyootay 6 bilood nebiga calayhi salaatu wasalaam gadaashii waxaan uga jeedaa yani arrinta ku saabsan khadiijo iyo guurkeeda waxaan leenahay waa arrin sugan ama tafaasiisha qaabkii uu guursaday iyo qaabkay u xidhiidheen iyo da'diisu intay ahayd iyo iyada da'deedu intay ahayd iyo wax allaale wax ku soo aroray culamaa ilxadiis ma sugan waxay ku soo aroray laakiin haddaynu iska sheegno lilmacluuma waxay sheegaan nebigu calayhi salaatu wasalaam 25 jir isagoo ah inuu safar kaxeeyey khadiijo ay lahayd dabeetana uu xoolihii ku soo faa'iido uu soo celiyey wiil ay khadiijo lahayd oo uu xoolaha la kaxeeyey baa uga warramay marka akhlaaq fiicnidiisii iyo dhaqankii nebiga iyo siduu ninkan dhaqanka wanaagsan uu ka arkay dabeetana khadiijo waxay doontay inay ninkan guursato kadibna gabadh bintu wahab ina bintu wahab ay u sheegtay gabadhii baa nebiga la soo hadashay calayhi salaatu wasalaam siday sheegayaan yani riwaayadka taariikhdu kadib buu aqbalay markaas buu guursaday nebigu calayhi salaatu wasalaam waaqidi oo aynu naqaano culamaa ilxadiis yani matruuk inuu agtooda yahay wuxuu ku sheegaa riwaayadiisa khadiijo inay markaa ahayd 40 jir nebiguna uu ahaa calayhi salaatu wasalaam 25 jir ibnu isxaaq isaguna biduuni sanad wuxuu ku soo aroorinayaa riwaayad kaloo aan waxba dhaamin inuu ahaa khadiijo inay ahayd 28 jir nebiguna 25 jir ahaa culamada qaar ka midina waxay ayidaan ra'yiga ibnu isxaaq bay yidhahdaan baa u dhow waayo 40 jir meelaha bay leeyihin way adagtay 6 caruurana inay dhasho yani caadada dumarka waxaa la yaqaanaa dee 45 meelahaba markay marayso inay ilmuhu ka dhamaado fogaato 50 inaanu la gaadhin marka culamada qaarkood waxay rajaxaan ra'yiga ibnu isxaaq sheegaya bay yidhaahdaan inay dhowr iyo 20 jirka ahayd inay u badan tahay maadaama 6 caruura ay u dhashay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayan kan waxaan leenahay midina taariikhiyan markaynu eegno waa taariikh la soo arooriyo laakiin midina sanad ahaan uma asixin nebigu calayhi salaatu wasalaam yuu kala hadlay waaqidi ra'yigiisa isagu wuxuu leeyahay khadiija aabaheed wuu geeriyooday buu leeyahay xarb ilfijaar horteed baabuu geeriyooday markaa adeerkeed ayaa la weydiistay oo loo khidbeeyey oo markaa guuriyey laakiin imaamu zuhari qowlkiisa iyo ibnu isxaaq isna siduu soo warinayo waxay leeyihiin may odaygu ma geeriyoone waa noolaayo odayga laftiisa ayuu ahaa ka gabadha bixiyey ibnu xajar alcasqalaanina fatxigiisa saas buu ku rajaxayaa in aabaheedu ahaa ninka la weydiistay intaasoo qisaa'is ku soo duuduub sanad ahaan wax adag oo asaxay oo jira ma jiraan laakiin waxa asaxee sax ahin waxa weeyaan inuu nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam khadiija iyo inay u dhashay 6 caruura alla ka siiyey subxaana wa tacaala iyo inay naf iyo maalba la soo qaybsatay khadiijo gabadh aad u khayr badan ahay yani amaan waxa ugu filan in ilaahay salaan u soo diray yani xadiis saxiixay sugayso waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam malakul jibriil uu yimi ee uu tilmaamayey khadiija in ilaahay uu salaan u soo diray idan khadiija waxa amaan ugu filan inay tahay saxaabiyadaasi uu alla subxaana wa tacaala salaanta u soo diray marka aynu eegno qabla nubuwa intii nebiga calayhi salaatu wasalaam aan nebinimadu ku soo degin dhacdooyinka la wariye culamaa taariikh ay sheegaan waxaa ka mid ah kacbada dhisideedii iyo xukunkii uu kala xukumay carabi qadiyadaasi markii ay isku qabatay waxay sheegaan nebigu calayhi salaatu wasalaam culamaa taariikh say arooriyaan 35 jir meelaha markuu ahaa ayay qurayshi waxay damacday inay kacbada dhisto kacbadu bay yidhahdaan iyaga hortood markan waxay ahayd radmi ama sukuur waaweyn oo dhagxan waaweyn bay ka samaysnayd oo dushuna qaawantay saqafna aan lahayn kacbada saa u taqaanin kacbadu waa daartan yar ee madow daartan
xajarul aswadku waa dhagaxa yar koona kaga jira meeshu waa daar yar oo qol ah oo albaab laga gala leh xajarul aswadkuna waa rukunka dhagax yar oo kaga sii jira quraysh baa markaa daartan dhistay nabi ibraahim iyo ismaaciil baa markii hore dhisay waqti taariikh hore taasay laakiin tan dambe waxa dhisay quraysh waxa la yiraahdaa markan quraysh ay meesha soo gaadhay iyagu dhagxan waaweyn bay ka samaysnayd oo dushuna qaawan tahay dabeetana waxay yiraahdaan waxyaabihii loo hadiyin jiray ama la siin jiray baytullah alxaraamka lagu guri jiray ayaa tuugu soo dhacday baabay sheegaan culimada taariikhda ka mid ah wax ka qaateen meeshii waxay kaloo sheegaan in ay gabowday oo muddo badani ay soo wareegtay oo ay iska dundumaysay oo kale waxay kaloo sheegaan waqtigaasi nabiga 5 sano ka hor intaan la soo bixin oo kale daad weyn inuu Makka maray oo darbiyadeedii si daldalooliyo si dhaawacay si kastaba ha ahaatee waxa muuqata inay u baahatay in dib loo dhiso qurayshina waxay qaadatay go'aanka ah inay dib u dhisto culimada taariikhdu waxyaabaha wariyaan waxa kamid ay leeyihiin waxay quraysh ku heshiiyeen bay yiraahdeen inay dhisaan koow iyo hanti nadiifa oo in lagu dhiso oo waxay yiraahdeen gabadh xun meher laga qaatay iyo xoolo ribo lagu iibiyay iyo xoolo la kala dhaco dulmiye iyo wixii xun oo dhan bay yiraahdeen waa inaynu ka ilaalinaa xoolo nadiif oo aynu ognay in si xalaal ah u soo baxeen oo kaliya dadkuna weligiiba xumaaya samaana waa la kala yaqaanay فكلنا دين النبي إبراهيم كتجينا وحواك استهرتناه ولذلك وحيد أهدان حولا نظيفة أن كل السنة ماشة لكن دمستي وصاير روايات كتاريخ الشيغان وصنة صحيحة ما نرك وحي كلا الشيغان دمستي دي كعبادة دمستي دي بالغير بقي دبتنا إنك ولد بن المغيرة لوريجري المخزومي أيا قبل أبي سقوا بيد هذا ما أنت هراين تسوقات مدرسة كورة كقاضي دبتنا مركزي maalinta cidi uguma tagin bay yiraahdaan maalmaadii baa la arkay inaan isna waxba noqonin meeshina wax ka dumiyo markaas la yiraahdo arrintu waa hagaagay si fiican ha loo dumiyo si kastaba ha noqotee ninkaas bilaabay bay yiraahdeen laakiin isaguna markuu u qaatay bay dhaayeen madaraka wuxuu lahaa allahumma la nuriidu illa alkhayr ila wadogteen aan wanaag waxaan ahayn u dumineen yaani inaan dhisayo kacbada way ka baqi jireen waana xurmayn jireen way dumiyeen kacbadii markii la dumiyay waxa lagu heshiiyay in dib loo dhiso dabeetana qabaa'ilkii carbeed ayaa qaybsaday dhagxantii meesha gali lahayd reer heblow idinku inta keenay reer heblow inta keenay reer heblow inta keenay in waliba inta dhibay ku waxa ka asaxay meesha tan iyadana hadaan sheegno waa xadiiskii sheegayay inuu nabigu kaleey salaatu wasalaam isaga iyo Cabbaas ay israaceen dabeetana dhagxanta markay soo gurayeen Cabbaas ku yiri war dhagaxani wuu ku sarsari doonaaye marada guntiga furo oo saar halkan oo dhagaxa isaga dhig dabeetana uu guntigii furtay nabigu iyo halkan saaray kadibna uu dhacay oo miyir beelay kadibna uu soo toosay isagoo le war ma guntigayga xidha isagoo le guntiga loo xidhay xadiiskaasina wuxuu sheegayaa waa marka qudhay nabigu kaleey salaatu wasalaam oo qaawsmay yaani waxa uu tilmaamayaa caadaadkii jaahiliyadu ay lahayd inaanu nabigu kala qayb gali jirin kaleey salaatu wasalaam markaas oo qudhaa Cabbaas yiri war marada dhagaxa isaga dhigo xagga sarata carabtaana gaar ahaan kacbada ayaa gaarkeedii meelaha in la iskaaway wax si weyn ba ma ahayn waayo quraysh waati samaysatay xeerarka lagu xajo oo ay kamid tahay dadka dabada ka yimaada qofku inaanu maradiisa u sitay ku dawaafi karin allahumma illa inu tuurayo mooyaan hadaad ku dawaafto marka ciidan boo xaq u leeyahay xidhata ma jirto oo inaad tuurta hadii kale bay dhaahdaan maro reer ma kaleeyin waa inaad ku dawaafta marka magaalada timaado reer Makka waa inaad weydiisataa nin kamid ah reer Makka inuu amaahiya marka iibiyo maro dabeetana marada reer Makka ay leeyihiin oo qura ayaa lagu dawaafi karaa bay dhahay cidda weyda maxay sameynaysaa labadii huyo oo haystana la xajacla ka qabo oo aan rabin de markuu dawaafay inuu iska tuuro ka waxay yiraahdeen isagoo qaawan buu dawaafaya isagoo qaawan ba marka dawaafi jiray ولذلك وكي النبي عليه الصلاه والسلام حجكي كواد markii Abu Bakr markii Cali la soo diray Abu Bakr wixii la soo faray waxa kamid ah maxay inaan gaal dambe sanadka dabadii ku soo noqoneen xarabka tawaafin iyo qof dambe curiyaan qof dambe qaawan yani wuxuu ku tusay xadiisku in markii hore qaawanidu iska macruuf ahayd in la iska tawaafo maadaama uu nabigu mamnuucay qof dambe oo qaawani inaanu meesha tan tawaafi karin idan curfiga carbeed meesha iska yaalay qaawanidaasi wax weyn ma sii ahayn
waa ka ad arkayso isagoo dee dhowr iyo soddon jira in la yidhi marada halkan saaro oo iskaga celi laakiin ilaahay subxaana watacaala uu ka celiyey oo uu miyir beelay. waxa ay tilmaamaan culamaai taarikh soo arooriyaan waxaa ka mid ah markii dhismihii cid waliba inteedii soo dhistay ee meel la soo gaadhsiiyey ayaa waxaa loo baahday in xajarulaswadkii la saaro. xajarulaswadkii markii baa qabaa'ilkii isqabteen dabeetana awal dhagxantii hore la qaybsay kani waa midh qure maxaa laga yeelaya qabaa'ilkii baa isqabtay annagaa saarinayna waxaa lagu heshiiyey albaabka ay yidhahdaan ka mid a albaabada xaramka laga soo galo albaabkaa qofka inoogu horeeye ka soo galaa wuxuu inoogu gar noqo aan aqbal laba yidhahdeen si baa lagu heshiiyey. albaabkii ciddii u horreysay kasoo gasho bay yidhahdaan say culamai taarikh sheegayaan ilaahay wuxuu ka dhigay nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam oo dhalinyaro dhowr iyo soddon jira. waxay yidhahdeen waa maxamed alamin raalli baanu ku nahay xukmiga iyo wuxuu inoo kala go-aamiyo. sidaa awgeed ayuu wuxuu say sheegayaan culamai taarikh wuxuu yidhi keena go-i baa la keenay dabeetana dhagaxii isagaa qaado go-i buu bartan ka saaray qabaa'ilkoo cid walowba odayadiina soo diraa la yidhi go-a daclada wada qabta go-i baa la wada qaaday meeshii markii la gaadsiina isaga ka qaaday oo saaray saasay aqbaleen. waxaanay u dareemeen reer waliba de inuu meesha wax ka saaray maadaama odaygoodii go-a dacalka wax ka qabtay oo xagga sare u gaadsiiyey inaanay hadhow noqonaynin manqaba yani wax laysu sheegto oo qola sharaf dheeraada ay tidhahdo annagaa berigii kacbada saan ka yeelay inaan cidina odhan karin. saas baa lagu dhameeyey baa la yidhaahdaa. waxay sheegaan culamaai taariikh horta waxaa cad qurayshi kacbadu halkii ay markii hore ka dhisnayd qawaacidu ibraahim way kasoo yaraysay. waxay yidhahdaan sababahay uga yareeyeen bay sheegaan oo waxay yidhahdaan maadaama ay ku heshiiyeen xoolo nadiifa mooyaane aan xoolo kale la gelin xoolii nadiiftee lasoo ururiyaa gaari weyday bay yidhahdeen. deetana waxay dhahdeen in xunoo kale iyaynan ku darine daartun aan soo yarayno saaskii daarta markaa halkii uu marayay laga soo gaabiyey oo meel ka sokaysa la keenay. walidalika waa kii nabigu laha alayhi salaatu wasalaam caaisha isagoo la hadlaya waa kii xadiiskii bukhaari ku tilmaamaya lahaa haddii aanay caaisha ay tolka ahayn qariibu cahd sida diinta ku cusub oo caynkana aan ka baqayna inay shakiyaan ama dhib kale inay soo gaadho kacbada intaan dumiye buu nebigu yihi ayaan waxaan dhismaha ka dhigi lahaa maxay qawaacidu ibraahim ayaan dib ugu celin lahaa oo dhismaha waxaan isaga daynayaa sideeda ahaatee dadka kan in waswaasa dhex galo la dhex cararo ayaan isaga daynayaa islaamnimada ku cusub ee islaamnimadooda ha iska haystaan laakiin qawaacidu ibraahim kuma dhisnee dib baan u dhisi lahaa. waxaan filayaa adigii cabdillahi ibnu zubayr baa mar mala dumiyey oo dib u dhisay oo qawaacid ibraahim ku dhisay laakiin xajaaj iyo habarqabayaashii markii ay dileen kadib bay haddana dib u dumiyeen oo ay xaggii kusoo celiyeen marka weli xagga yaraabay jirtaa. markii dambena culamada muslimiintu waxay arkeen war meeshan haddii marna lasii dumiye marna lasoo dumiyo dhibteedaa badanaysa inteedaa isaga daaya nebiguba intaasu isaga daayo kaga tegaya laakiin cabdillahi ibnu zubayr baa markaa isku dayay inuu qawaacidu ibraahim dib ugu celiyo. saa daraaddeed waxaa la yidhahdaa waxay kasoo kaceen in dhulkii dhismo u ahaa. cumuuman inahaasi waxaynu odhan karnaa waa inayogii qabla nubuwa nebiga calayhi salaatu wasalaam intii aanu nebiga noqon. siiradiisa caamkii qabla nubuwa markaynu tilmaamnana wuxuu ku caan ahaa nin caqli badan oo degan oo aamus badan oo xishood badan oo dadka waxtara oo gacantiisu furan tahay oo aada u caqli badan oo ammaano dhammaanteed lagu yaqaano cid waliba xataa acdaadiisu ay wax ku aaminaan oo run lagu bartay oo aan weligii been lagu arag oo ilaahayna ilaaliyey subxaana watacaala. ilaahayna ilaaliyey xataa waxyaabaha jaahiliyaadka yaryar ee dadku iska samsameeyaan ilaahay baa ka dhowray subxaana watacaala. waxaa la yidhaha weligii sanam ma caabudin ma salaamin bale axaadiistii waa kuwii tilmaamayey zayd ibnu xaarisaba iyagoo tawaafayaan markii tawaafka la waday baan sanam soo taabtay buu markaasu ii diiday qabla risaala markaasaan haddana baa layidhi ku dayo mid kala soo taabto markaasu haddana ii diiday yani xataa taabashadooda muu cuni jirin baa la yidhaha wax alaaliya wixii loo qalo cala nusub sanamadoodan iyo aalihadan iyo waxaan ay caabudaan iyo qaraabintoodan oo dhan muu cuni jirin. kuwan istaqaawiyey iyo waxaan kuma jiri jirin markaa quruu maradiisa degta saaray markiina waa miyir beelay indhaa wuxuu kala qaaday isagoo izaari leh. khisaalka runtii fiican oo dhan markaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa. intaasi waxaynu iskaga soo koobaynaa wixii ku saabsiisnaa qabla nubuwa. waxaynu u iman doonaa markaasi intii uu nebiga noqday calayhi salaatu wasalaam oo ah inta rasmiga aynuu socono. inta tan uu nebiga iska fiican yahay ama asaxay
laakiin waxaa la rajaxay inuu 13 sannadood uu maka joogay 13 sannadood ee uu maka joogay culimadu lafteeda way sii kala qaybiyaan oo qayb waxay ku tilmaamaan dacwo hoos ahaaneed uu waday iyo qayb uu dacwada kor ugu dhawaaqayay oo uu kor u waday waxaynu bilaabi doonaa markaasi bal qaybta koowaad iyo markii alle subxaanahu wa tacaala uu nebiga ka dhigay ama rasuulka laga soo dhigay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha da'da nebigu markii ay 40 jir ku dhowaatay ayaa wuxuu jeclaystay in badan in uu iskaga baxo nimankan waxay caabudayaan iyo meelahoodan oo dhan oo khalwa iska sameeyo gaar inuu cidla isaga baxo iska ta'amulo dunida tan iyo saa alla u abuuray subxaana wa tacaala uu fiirsado iska cibaadaysto waayo dadku diintii ibraahim xaniifka ahayd wax kasii hadhadhay uun baa jiray marka inuu iska cibaadaysto waxay weliba gaar ahaan culamada taariikh wariyaan ramadaanada inuu bixi jiray inuu geli jiray godkaasi la odhan jiray gaaru xiraa gaaru xiraa waa god weyn oo aada u ballaaran god yar maaha waa god aada u afweyn oo weyn buurtan jabalu nuur la yidhahdo ku yaala caamadu iminka marka xajka la tagayo meelahaas ay buurtaas ku dhibaan oo koraan oo godka galaan oo sunno kusoo tukada waxaas iska bidca waxba kama jiraan godkan beri buu nebigu galay u ka soo baxay khalaas wax dambe oo loo tagtago oo laga qabtaa ma jiraan godkaasi buu nebigu tegay calayhi salaatu wasalaam godku buur dheer buu korka kaga yaala muddaad koraysa yacni in nusu saac kolleyba ka badan baan rajaynaya saacad ku dhawaad meel hawa qaadanaysa qofku inuu lugeeyo waa buur aada u sarraysa marka la eego inta uu qofku waddo yaroo aada u luuqal oo laga koro waa meel aada u cidlo ah halkaas buu nebigu isaga bixi jiray calayhi salaatu wasalaam oo iskaga cibaadaysan jiray halkiisii isagoo iska jooga markaasi ayaa waxa u yimi malakul jibriil nabiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadu intaan jibriil u iman waxay soo martay qowr kala gadisan maalan talaa'icu nubuwa waxyaaba lagu tilmaamaa jiroo nebigu uu dareemi jiray maalan sida xadiiskii saxiixu muslimka ku sugan nebigu wuxuu leeyahy dhagax baan garanayaa maka isalaami jiray dhagax markuu soo maro uu nebiga salaama calayhi salaatu wasalaam waa intaanu nebi noqonin dhagaxi salaama mucjiza ama waxyaabihii alle subxaana wa tacaala uu nebigiisa ku karaameeyey bay ka mid ahay waxaa ka mid ahayd oo waxyigu ugu soo horreeyey nebiga 6 biloodoo hore wuxuu ahaa riyo wuu riyoon jiray laakiin xadiiskii saxiixa ku sugnaa siduu sheegayo riyadaasi mila falaqi subxi buu arki jiray riyada ambiyadu riyadan dadka laba mid ah dadka caadiga qofka caadiga markuu riyoodo riyadiisu adqaatu axlaam inay tahay dhadhab shaydaan inay tahay waa suurtagal yani wax shaydaan u waxyooday inay tahay waa suurtagal siduu nebigu ku sheegay waxaa kaloo suurtagala inay iska dhadhabtay wixii uu maanta soo aragku inay maskaxdii soo celisay waxaa kaloo suurtagala wax waxyiye inay tahay wax khayr qaba oo malag iyo cid u sheegtay inay tahay laakiin mar kastaba iyadu tafsiir bay u baahan tahay tafsiirkeeduna mar kasta lama haleelo in badan waxaa laga yaabaa si aad moodeyso si aan ahayn inay tahay yani siday kuugu soo baxday inay wadatay uma badna ama riyada nebiyadu iyadu waa waxyi ru'ya alambiyaa waa waxyi tan adiga riyadaada caadigaa waajibku saaran maayo adilada sharcigana ka wada caamadu waxay yidhahdaan sheekh hebel bar riyado sheekh hebel riyadiisu isaga ku kooban haddii loo bishaareeyay hadday wax saxaydii haddaanay ahaynba wax diinta ka mid oo daliil galana maaha ee daliil wuxuunbaa diinta ah sunno iyo kitaab laakiin riyada ambiyadu way ka gedisantahy riyada ambiyadu iyadu waa waxay rasmiya walidalik ba qur-aanka waxaa ku aragtay nebi ibraahim in uu ru'yo ku arkay maxay wiilka inuu qalo ismaaciil inuu gowraco dabeetana fuli baa la yidhi iyadu waa waxyi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyigiisu wuxuu ku bilaabay markaasi ru'ya saadiqa weliba nusuustu siday sheegayso ru'yadaasi 6 bilood buu waxyigu noocaa u socday 6 bilood buu waxyigii nebiga usoo degayay uu ugu imanayay isagoo hurda uun loo waxyoonayay oo loo sheegayay laakiin waxaa loo sheego sida waagu u beriyo waagu yani markuu beriyo dee qof waliba waa arkaya misla falaqi subxi oo kale waxa uu saa ugu riyoodaa sidaa cadceed buu soo baxayso kale wax loo hubo oo loo arkayo bay intaa kadib walidalik baa masalan sheekhana raxiq lmaktuum kale ayaa wuxuu leeyahay xataa xadiidkii sheegayey juz-un min 46 ka sheegayay wuxuu ku tafsiirayaa nooca kale wuxuu leeyahay
maadaama 3 sannadood ahay fitradii nabiga loo waxyoonayay 6 biloodna ay riyadu ahay waa juz ka mid ah uu leeyahay 46 oo 46 waxa uu ka soo ururiyay oo leeyahay waa waxyigii nabiga oo 46 meelood loo qaybiyay meelaha yani 3 sannadood baa nabiga loo waxyoonayay 6 bilood ka mid ah waxay ahayd maxay riyo marka waxa weeyaan marka intii loo waxyoonayo dhan la isku daro 46 meelood meelahan ay ku dhacaysaa kadib nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doortay inuu meeshaasi iska tago godka qaaru xiraa la yidhaahdo godka qaaru xiraa la yidhaahdo ayaa waxyigii ugu horreeyay ku soo degay culamada taariikhda qortaa waqtigaas sida ay u calaamadinayaan maalan sheekhan saaxib araxiiq almaktuum wuxuu leeyahay waxay ahayd maalin isniineed oo ramadaan ay 21 tahay bisha August 10keedii 610 miilaadiyada oo da'da nabigu ahayd 40 sano oo qamariya yani tadayaxa laga tiriyo 40 sano iyo 6 bilood iyo 12 maalmood buu leeyahay haddii cadceeda laga tiriyo la eegana 39 sannadood 3 bilood iyo 20 habeen buu ahaa buu leeyahay isagu saas uu xisaabiyay xisaabtani xagee ka timi kow in waxyigu isniin soo dego waxyiga nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu isniin ku soo degay axaadiis baa cadaysay fiihi wulidtu wa fiihi unzila calay daka yawmu waladtu fiihi wa yawmu yubcad wa yawmu bucithtu yani xadiiskii kale waa kii tilmaamay idan axaadiis baa ku asaxday isniin inuu nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam axaadiis baa ku asaxday waa saxiix lahuba waxyigu inuu isniin ku bilaabmayna axaadiis baa ku asaxday kaasi waa mid qur'aanku wuxuu kaloo sheegay شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بش رمضان بونبونين تيدا وحكم دبا إلهي لي وبش القرآن كسوده يعني إلهي سبحانه وتعالى هذا الكيسي وحو الدور والنبي محمد كله هد لي ومد الله صادري إنه سوده بالرمضان رمضان ما كان فضائش هذا وحكم ده إنه يتاي بشي سمدا يعرق يعني سمدا يرقل كسكو حجمين أما بشي وحي سوده أيدي واك كلام القرآن كإلهي كنت الماما يا قرآن كان ينسود إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين هبين بركيسا هبين كم بركيسا وتعايدك لتلمام سمحي إنا أنزلناه في ليلة القدر هبين ليلة القدر إناي مثلا شغل حساب تسنة هدان تبقوا نقطنا وحي سجي جيجي كو إنا رمضان نقطه رمضان وقت مر لبعض وحور رباء إنه رمضان معلتي كان نقول يسوي علماء التاريخ خلافات بدل ما يسوي أروريا قار واحد هذا تضبيط طبعا كي بيهد قار واحد هذا معلتي تضباط بيهد قار واحد هذا دوري الله وطن كي بيهد يسوي حساب يسوق جاي وحوريكو ما دام ليلة القدر سود جاي ليلة القدر يا حادث بشيء سينو وفري هاي هبين كيسيين ويهاي وانو ترى ضمن أنا هنا ترى كيسيين تقول لا تن صدق لا تن شنو لا تن هبين نوع عشوكلا إذن قولنا الشيء يسبب له يفرط وما هديه مالها صدقة بح مر لبعض نكون نقدوه عليه هاي سيد الله حسابيه وحي كلات المام يسبب له وين السنين نقطة وترجع سوين السنين كوبك ما بولي ده تنوح هذا يفرط السنينات رمضان تأسي كل عيسى رمضان تأفرط السنينات وحي كجب بيجنا يبولي فالضبط أفرط طبنك قاضي الله عطنك هي سجادي الله عطنك إذا وحي سجادي الله عطنك يا أفرط طبنك الطورية waayo iyagu waxa weeyaan waa tiro dhamaystiran la witriga way ka baxsayeen wuxuu soo qaatay markaasi waa inay noqotaa maxay 7 ama 22 waxa xadiiska tilmaamay buulay al-10 al-akhir in laga daydayo witrka xijaabtiisa intiisu geegay isagu wuxuu leeyahay 22kii Ramadaan oo isniina ayuu ahaabo isagu qabaa habeenkii waxyigu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku soo degay ala kulli xaal intaas waa xisaab la isu geegay لكن وحن بان قررنا إنه هذين ليلة القدر وحن بان قررنا إنه يهيد بالرمضان وحن قرر قررنا إنه يهيد محي السنين انت هذا النصوص لا يديك سنكره أي جرته النبي عليه الصلاة والسلام وحي كتري كسو دقي عائشة واصلة النبي عليه الصلاة والسلام وحي وقول رأي كسو دقا وحي هانشر بيت الريو دبتنا وابو مركب بريو سيدا وابري أبو آركي شري kadib baa cidbada la jeclaysiiyay qaar xiraa ayuu ku taxanusti jiray taxanadku waa tacabud ayuu iskaga cibaadeysan jiray waxoogaa habeenaaba intuu yimaado oo khadiijo u yimaado uu raashin qaato ayuu muddo maqnaan jiray markuu raashin ka dhamaado soo noqdo haddana in raashin oo kale u qaata meeshaas uu ugu cibaadeysan jiray
markii dambe ayaa waxa uu yimi malakul jibriil baa markaa wuxuu ku yidhi iqra akhri nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma ana biqaari mid wax akhriya anigu ma yihi qaala faakhadanii fagafanii xataa balaga mina aljahd xadiidku waa kii tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa idhahdo waxba ma akriyo wuu qabanayay jibriil dabeetana xoog buu u cidhiidhiyey ilaa iyo aan daalo ama ay naftiisu ka timaada buu leeyahy markaasuu isii daayey dabeetana wuxuu yidhi buu yidhi akhri haddana mar labaad baan idhi buu yidhi ma aqaan sida wax loo akriyo haddana wuu iqabtay buu leeya xoog buu iqabtay ilaa iyo sidii oo kale wuu i cidhiidhiyey dabeetana wuu isii daayey markaas buu wuxuu yidhi akhri waxaan idhi buu yidhi ma ana biqaari mar saddexaadkii buu iqabtay buu yidhi oo intuu isii daayey buu yidhi iqra bismi rabbika aladii khalaqa alinsana min calaq iqra warabuka alakram aladi callama bilqalam callama alinsana ma lam yaclam aayaadkaasaa soo degay oo waa qur-aanka intii ugu horraysay soo degtay intaas buu yidhi akhri kadib wuu ka tegey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu baqay xataa baquhu wuxuu ka gaadhay xad axaadiista qaarkood ay tilmaamayaan iftacashat bawaadirun yani bawaadirka waxaa la yidhahdaa muruqan yare garabka iyo luqunta isku xidha kuwani baqa daraaddeed ay gariireen gurigii baan tegey buu leeyey anigoo khadiijo ku leh zamiluni idada baan idhi buu yidhi dabeetana waa la daday markii cabsida ay ka baaday ayaa khadiijo yidhi buu yidhi maxaa dhacay warkiibuu ka sheekeeyey marka warkii ayuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi naftaydaa baan u cabsaday sidii loo galay buu ka sheekeeyey khadiija gabadh aada u caqli badan bay caqli badnideedaasi waxyaabaha tilmaamayana waxaa ka mid ah nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay ku leedahay ilaahay baan ku dhaartay alle weligii ku hoojin maayo ilaahay weligii ku hoojin maayo waayo waxay leedahay de hal jazaau lixsaani ila lixsaan qofku hadduu samaha sameeyo abaalku helaana waa wanaagu waxay leedahay qof wanaagga sameeya baad ahaan jirta innaka latasilu rixm wataxmilu lkalb wataksib almacduum wataqri dayf watuciinu cala nawaa'ib alxaq waxay leedahay adigu waxaad ahayd qofka culus ama dayn ha ku cuslaado ama dhib ha ku cuslaado kuwa culus mid wax ka xambaaro oo ka qaado baad ahay kaan waxba haysan mid wax siiya baad ahay martida ku sooraad ahay dhibaatooyinka mid dadka uga gargaara baad ahay yani qof wanaaggaasoo dhan samaynaya in dhibi un iskaga timaado macquul maaha bay tilmaamaysa laakiin inakeen bay jiri waxaynu u tegaynaa waxaa jiray nimay iyada ilmaadeeriyiin oo adeerkeed dhalay oo la odhan jiray wariqa ibnu nofal ibnu asad khadiija bintu khuwaylad ibnu asad bayan ahay yani ilmaadeer bay ahaay ninkan ay ilmaadeerka yihiin nasraaniyadu qaatay masiixiyadu kristan buu noqday marka luqada cibriga buu wax ka yaqaan yani cibrigu waa luqadii yuhuudda ee kutubta markaa ku qoraydna waxbuu ka yaqaan marka waxay leedahay arrinkani ma aha xume aan wax weydiina ninkan caalimkeena keen way kaxaysay nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkaas bay u geysay ninkan markay u geysay waxay tidhi bal dhegayso in adeerka hadda waxa uu kaaga warramo bal ii warran buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay buu uga sheekeeyey qisadiisii buu u sheegay sidii wuxuu arkay ama riyaa noqoto hadduu ahayd ama intii jibriil uu kala kulmay yani wixii uu dareemayey wixii u arkay buu u sheegay markuu u sheegay buu wuxuu ku yidhi markaas wariqa markaa wuu gartay in intan loo waxyoonay wariqa bnu nofal dee maadaama ahlu kitaabha wuxuu hayay bishaaraadkii hore ee nebi soo baxayo yani ahlu kitaabka agtooda waxa yaala saa dee ilaahayba qur-aanka ku sugayo waid qaala ciisa bnu maryama ya bani israa'iila inii rasuulu llahi ilaykum musadiqan lima bayna yadaya min atawraa wamubashira birasuulin ya'ti min bacdi ismuhu axmed ilahay qur-aanka wuxuu ku sugaya inay hore u hayeen bishaare ciise uu sii sheegay oo sheegaysa inuu nebi moxamed iman doono axmed nebi la yidhahda inuu soo bixi doono tawraadda iyo injiishan ay hayaan in badan baa la taxriifiyey laakiin qaar ka mida xataa ilaa hadda magaciisa lagu haya masalan kuwa magaca lagu hayo waxaa ka mid a tawraada iyagu tawraat samira mid la yidhaahdo iyo injiilu barnaba oo kale injiilu barnaba iminka anaajiil afara un bay haystaan kristanku afar injiil yani afar nin waxay qoreen oo ay ku sheegayaan waa ciise wixii aanu kala kulanay marka kan shanaad
qarnigii shanaad ee miilaadiga ayay kiniisadu dafirtay oo diiday waayo injiilu barnaba waxa uu diidan yahay caqiidadan ay imika haystaan ee ah saddexda ilaahay isku ilaah in ciise ilaaha buu diidan yahay wuxuu rumaysan inuu ciise nabi alle iyo rasuulkiisa ahaa isaga uga dhow marka xaqiiqada kuwan ay hayaan laakiin kiniisadu qarnigii shanaad bay ka mamnuucday oo ay u diiday makhtuudadiisii meel bay iskaga riday beri daweyd ayaa laga soo saaray oo nin raahib oo baa ka soo saaray Fatikaanka wariga yani kaatoliga meeshooda ayuunbu ku arkuno ka soo saaro oo islaama lagu tilmaamayna ala kulli xaal ka beri daweyd baa la soo saaray waxa kaloo ka taageeraysna oo jira البحر الميت درسيga meesha la yiraahdo Urdun iyo agagaarkeeda xafriyaadka dhulkan la qodo laga soo saaro waxyaabihii dadkii hore ay ka tageen aafaartoodii ayaa waxa laga soo saaray aafaar iyaduna injiilu barnaba wuxuu sheegayo kale ku qorantay nusuustii aayaadkii sheegaya injiilu barnaba mid ay ku qorantay oo sheegaya iyaduna النبي محمد يعني ku dhawaaqay isxaaqa qobi afartanaad wuxuu sheegaya yani lafdiga la ilaha illa allah muhammadur rasuulullah wa lafdiga aba sidiisa ugu qoran ana jiishoodan xataa ay haystaan qaar kamida مثلا استاذ عبد الله الداوود الاشوري ninkii la oran jiray waa wadaad kristan oo islaamay sababta ku islaamayna waxa weeyaan wuxuu leeyahay tarjumada la soo tarjumay afkii cibriya laga soo tarjumaa la qalday hatta illa hadda lagu ayaabu leeyahay injiilu luqa yani luqa injiilka la yiraahdo مثلا chapter كافر طبناد آيات اللبات وحقو قرن بوليه الحمد لله في العالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد ترجمة عربي واعن كاس بوليه نكاس هو كتاب بوليه ليلة دو بايبل كيوت محمد كشهدي وحا اللمي ده أنا جيش حتى يمكا هايستان رجب لنبات الماميني وحكو شرا سدا ودي أحمد ديداد إلا يوفو بيديه كتاب كي سنيره وكت المامي بايبل كيوت محمد وحكيري على كل حال waxaan leenahay ninka kani taariikh badan buu hayay oo sheegaysa in uu nabi soo bixi doono koow yahuudina waa tii sheegaysaba Madiina reer Madiina inta badan waxa islaamkoodu uu dheereeyay waxa kamid ahaa yahuudi la deganeed oo asaarta ku sii oran jirtay marka uu idin yimaado marka nabiga cusub soo baxo ayaanu idin jabinayna inta raacno idin ku xaq badanayna laakiin markuu nabiga carab noqday bay ka weecdeen qoladii yahuudahay qoladii carbeedna markay arkeen nabiga cusub bay ilaaliyaan la idin ka dheeraynay waa ka yahuudiyiin ku sii hanjabisay waxyaabo tilmaamaya in yani aafaartan la hayay waxa kamid ah mesela iyadu waxa masalaya sanad xasan aynu ku soo artay Salman al-Farisi iyo islaamnimadiisa Salman al-Farisi saxaabiga la oran jiray culimada taariikh waxay sheegaan aad weyn buu jiray waxa laga sheegaa 250 sano bay taraajumtu qoraan inay daadiisu dhaafisay ala kulli hal Salman al-Farisi taariikhdiisu waxay sheegaysaa ilaa 7 raahib inuu soo kala maro kala dambeeyay oo kolba mid uu yimaado oo markuu raahibkaasi dhimanayo yiraahdo ay dardaaran markaas uu yiraahdo ciddin saxa haysata garan maayo ninka hebel la yiraahdo wadaad hebel meel heblaayay deganuun hadda gaari karto ninkaas baan ku ogay wax sax wuu taga kii u dambeeyaan ay buu waray dardaaran wuxuu yiri garan maayo diintii saxa ay cidda mooy ku hadhay haatan waqtigii nabi soo baxayay baa joogay nabiga uu hadda qaadayn karta raadicay dhul timir loo caynkaas iyo Madiinu tilmaamteedu tilmaam inuu ka soo bixi doono iman doone nabiga uu raadicay Salman al-Farisi isagoo nabi raadicay soo galay Madiina dabeetana carabti baa inta afduubtay bay iibiyeen adoon bay ka dhigeen isagu diin buu raadicay laakiin inta la qabtay ayaa la gaday dabeetana waa la adoonsaday isagoo adoonsigiisa iskaga jira buu nabi maxamed yimi alayhi salaatu wasalaam Madiina dabeetana calaamaadkii loo sheegay wixii oo dhan buu xaqiiqsaday saas buu ku islaamay على كل حال وحنا لنا آثار بدن باجرته وشيء جيسي النبي عليه الصلاة والسلام نبي ورقة ابن النوفل المركزي وحو فهمي إنه ننك كان يهي النبي إلا سجي وحي جينا وحضر بالعمي مركز بوحو يري إلهي بان قلنا أعطيبه لي ورقة ابن النوفل وحو لي وحي كان كسود دقي واكي كسود دقي وكربو لي نبي موسى واكي كسود دقي إيش الله تضي دام قوم ملايده فالمان اللي يراه هذا ورقة ابن النوفل مركا وحو مريبا إذا أنت آدو قبوبا وحطان وإنداس في عوى حواكي إذن مركا بوحو بلابين وسقوم مايو إلهو يامن يري قدقا أنكو قرقار إبو لي مركا سيوحو يدي بالماء النولاد أبو يدي مالنت الطلقاء قصاري دوران يعني وحداك ساين صفات كالنبوة ده ونبي قولي إنه ورقة هيي ويكتبت هيي مركا سيكو قرفي marka wuxuu sheegayaa warqat ibn Nawfal nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam illa bixin doono inuu nabiyay oo waxa ku soo dagay waxyiyay
oo carab ay la coloobi doonto oo reer maka ay maagi doonaan oo dabeetana maka laga saari doono oo hijroon doono ka warramaya markaasuu wuxuu yidhi ilaahow bal ma noolaado maalinta ay ku saarayaan tolka aan kuu gargaare laakiin nebigu ma ogeyn in tolkii saarayaan xumana iskuma ogeyn inuu nin fiican oo tolkii u wanaagsan yahay ayuu isku yaqaanay dee dadkaad wanaag u samaysaa ku xumaynayana ma aha wax loo daraso oo dadkaad wanaag oo dhan kaa helay inay hadhow xuma kaaga abaalgudayaan ma aha wax loo daraso saa daraaddeed buu nebigu wuxuu ku yidhi wariqa awa mukhrajayahum ma anigay saarayaan buu ku yidhi warqat ibnu nawfal ba wuxuu leeyahay maalinta lagu saaraya maan joogo waa kuu gargaaraya nebiguna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam awa mukhrijayahum ma aniga lay saari doonaayo tolkiiba ay saari doona o eryi doonaa haa buu ku yidhi wariqa waayo wariqa nin waa yeela oo yaqaan dacwada iyo islaamku suu u kora buu ahaa wuxuu yidhi waxaan aad la timi cidi lama iman ilaa iyo colaadiisaa badatay yani rasuul ma soo bixin ilaa iyo shayaaiin lisi waljinna way isugu tageen oo colaad baa lagala hor yimi haddaan soo gaadhana buu yidhi maalintaasina ansuruka nasran mu'azara waxaan kuu gargaari doonaa buu yidhi gargaar xooggan laakiin alla ma qadarin ee waraqat ibnu nawfal wuu dhintay nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu dareemay in waxyi uu ku soo degayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dareemay ama wuu degay oo nin caalima ayuu u tegey oo u sheegay waxa kan inuu waxyi xumaanaa khadiijina markii hore ay sii dejiso u tilmaamtay dadka wanaagga sameeya wanaaguna inay la kulmaan kadib wakti yar baa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyigu uu ka go-ay waktigaa uu ka go-ay culamada qaar baa sheega 3 sano ahayd qaar baa 2 sano iyo badh laakiin saaxib araxiiq almaktuum isagu wuxuu leeyahay war ayaamo yar bay culamo badan baa qabta inay ayaamo ahayd oo ka yarayd waktigaa qola sanawaadka sheegaya sida ibnu xajar iyo rag lamid a laakiin saaxib araxiiq almaktuum isagu wuxuu leeyahay war 8 cashaabay isagu tiradiisii unbuu dib ugu noqdo wuxuu yihi waxay ahayd 21 buu ku soo degay ramadaan intii ka hartanayd unbuu ka maqnaa dabeetana shuwaalkoodeedii buu soo noqday buu leeyahay oo waxyiga dambe uu soo degay yaa ayuha almudaffiru ya 10 casho ayay ahayd baanu leeyahay fatrul waxyi ama intii waxyigu uu ka maqnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wararka sheegaya yani bukhaari xadiiskii ku yaala ee dheeraaba waxa ku jira balaagaat imaamu zuhari uu warinayo wa fiima balagana buu leeyahay in nebigu jibriil iyo waxaan intuu ka baqay uu isku dayay inuu iska tuuro buur oo markuu buur sidaa iska tuurba uu jibriil istusayay laakiin culamadu waxay leeyihin waxaas ma asixin bukhaari ka ku qorana wa fiima balagana buu leeyahay waa balaagaat yani waa mursal ma aha xadiis sanadkiisu saxiix yahay oo taxan yahay sida xadiiska qaybtiisa hore marka dadka badh baa ku kadsoomo ay tidhaahda xadiiska bukhaari wariyo dabeetana sidaa walidalik baa culamo badan leeyihiin waxba kama jiraan ibnu xajar alcasqalaani baa kamid ah balaagaadkaasi wuu radinaya calaamat alalbani baa kamid ah calaa kulli xaal cismada ayaa u diideysa cismatu nubuwa inuu isku dayo inuu isdilo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaan leenahay waxbana isma dilin meel kuma niyoonin inuu iska tuuro waa degay markii ay gabadha iyo khadiije iyo waraqaba isugu tageen nebigu calayhi salaatu wasalaam waa degay waana yaqiinsaday inuu nebi yahay kadibna waxaa bilaabmay waxyigii iyo isdaba socodkiisii waktigaasi waa markay soo degtay yani fatuurkan ama waktigan waxyigu ayaynu sheegaynaa waa waktigii u dhexeeyey iqra iyo mudathir qaybteeda hore intay soo degaysay culamaai siira ama culamaai tafsiir qaar ka midina waxay soo aroorayaan mar saddexaad inay jirtay laakiin markaa saddexaad waa aad bay daciifatay waa qisada ay usoo arooriyeen in nabiga su-aale la weydiinayey ruuxda iyo ay ka mid yihiin masaa-ishii kaafkii iyo waxaa la weydiiyey oo dabeetana insha allah intuu ilaabay 15 casho ay qaadatay xadiiskaas isagoo daciif calaa kulli xaal waxay culamadu isku waafaqsayeen in futuur jiray waa kanu iqra iyo mudathir inta waktigii u dhexeeyey waxaana la isku waafaqsay inaanu wakti badan ahayn walidalik xataa ibnu xajar qolada sanadaha sheegaysa iyagu sanadkooda waa daciif walidalik ba ibnu xajar laftiisi wuxuu ku tegaya inay wakti kooban ay ahayd kadib ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ka soo socda xadiidkii saxiixu lbukhaari siduu tilmaamayo isagoo ka yimid taxanuskiisii waa waktiga uu leeyahay saaxibu raxiiq lmaktuum nashwaal bilowgeedaas bay ahayd isagoo ka yimi meeshii uu ku taxanusi jiray ama ku tacabudaya ama uu ku cibaadaysanay ku khalweynaya gaarka ugu baxayay
oo soo socda ayuu wuxuu maqlay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa loo yeedhay dabeetana wuxuu leeyahy waxaan eegay midigtayda waxba waan ka arki waayey waxaan eegay dhanka bidix waxba waan ka arki waayey xagga hore xagga dambe dhan walba waan eegay buu yidhi waxba waan arki waayey markii dambe ayaan kor eegay buu yidhi dabeetana dushayda ayaa waxaan arkay buu yidhi malagii godka igu yimi waa malakul jibriil oo kursi ku fadhiya bayna asamaa'i walard dabeetana faju'istu minhu rucbaa buu xadiisku tilmaamay waana cabsaday buu leeya aad baan uga baqay ilaa ayaan dhulkaba ku dhacay dabeetana khadiijo ayaan u imi buu yidhi anigoo le zamiluni zamiluni dafiruni dafiruni wasubbi calaya maan baaridan anigoo le baan imi buu yidhi idada 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 oo biyo qabowna weliba igu shuba anigoo sidaa le ayaan u imi buu leeyahay khadiija waa la daday markaasi markii la daday biyo qaboobaayo wax lagu shushubayna waxaa soo degay aayaadkan qur'aana ee suuratu mudathir ugu horeeya oo alle subxaana wa tacaala ay leeyihi yaa ayuha almudathir qum faandir warabbaka fakabir wasiyaabaka fatahhir wاrujsa fahjur aayaadkaas baa soo degay walaa tamnun tastaktir oo ilaahay subxaana wa tacaala uu mabda'u risaala ugu dhiibaya yani iqra waxay culamadu yidhaahdaan nubuwada ayaa ku bilaabantay risaaladu ama diristiina tan bay ku bilaabantay ilaahay leeyay qum faandir yaa ayuha almudathir baa la yidhi war midkan isduuduubayow qum faandir kac baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala oo faandir dig yani kan isduuduubayow baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala kaanamaa loo tilmaamayo waktigii dafciga iyo raaxada iyo hurdada iyo nasashadu iyo ceeshka haniiga ee musaaxa ee waktigiisii waa dhammaaday arrin weyn baa lagu faraya ka coodi waa sifo runtii qof kasta oo raba inuu xambaaro risaalada tan looga baahan yahay oo ah qofka risaalada xambaaraya inuu ku talagalo inuu xambaarayo arrin aad u weyn oo aan isku cuntamin inaad nin guri noqoto iyo inaad nin gola noqoto yani nin guri inaad ahaato guriga iyo xaaska iyo carruurta iyo intan koobciso koolkooliso iyo inaad risaaladan xambaartaa waa isku adagi walidalik baa ilahay wuxuu nabiga ku leeyahy yaa ayuha almudathir kan isduuduubayow baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala qum kac baa la yidhi oo faandir dig oo dadka u dig waa shaygii koowaadee la faro inuu balaaq dadka gaadhsiiyo ka labaad ee takliifkii aayaadkani tilmaamayaan waxa weeyaan warabbaka fakabir inuu isagu naftiisa ku tabaqo qadiyada tan oo arrintu waxay ku kooban tahay ama ku duuduuban tahay inuu qofku ilaahay weyneeyo subxaana wa tacaala iyo ka dambeeyo idan dadkana u dig baa la yidhi adiguna naftaada ka bilowo warabbaka fakabir alla weyney subxaana wa tacaala khusu bitacdiim oo cidna hala wadaajin masaladaas waa masale u baahan iyaduna ahlu dacwo inay aada ugu fiirsadaan oo waa madkhalka dacwada laga galo madkhalkan waa indaar iyo tacdiim alle subxaana wa tacaala in la weyneeyo oo dadka qulubtooda lagu weyneeyo qofku markuu caqiidaysto ee yaqiinsado ee uu rumeeyo weynida alle subxaana wa tacaala ayaa hoggaansankiisu fududaanaya yani in badan waxaa laga yaaba abnaa saxwa aljadiida inay isku dayaan masaalixda waxaa laga helaya waxaan inay dadka in badan u sharxaan laakiin waxa ka habboon in dadka lagu weyneeyo ilaahay subxaana wa tacaala qalbigooda haddii uu qofku ilaahay qalbigiisa uu ku weynaado wax waloo kalaba markaasi wuu ka hormarinaya shirki iyo waxaasoo dhanna uu ka dheeraanaya idan madkhalka ama meeshii la yidhi dacwada ka gal waxa weeyaan warabbaka fakabir walidalik baa in badan qur'aanka waxaad arkaysaa iyadoo masaa'ilkaasi ilaahay iyo weynidiisa iyo tacdiimkiisa in badan uu qur-aanku ka sheekaynayo yani haddaad u fiirsato qur-aanka in mise goorba khalaqa asamaawaati waalarda ama sakhara alleyla waalnahaara ama waxa alla abuuray iyo qudradiisa iyo awoodiisa waxaa la yidhahdaa tawxiid arububiya markuu qofku si fiican u qoro ayay daba socotaaba tawxiid aluluhiya warububiya tawxiid aluluhiya wa tawxiid alasmaa wasifaat yani ilaahay weynidiisu markay qofka qalbiga degto ayaa addoonsiguna bilaabmaa markaas inuu qofku cibaadadana alle u keli yeelo subxaana wa tacaala wasiyaabaka fatahhir baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala waa waxyaabihii nabiga la faray ee labaad maradaada daahirta baa la yidhi siyaabka kan culimada qaarkood waxay ku tilmaamaan ku macnawiya laakiin labadaba cumuumankiisaynu ugu qaadayna wasiyaabak dharkaaga fatahhir daahirso dharkaaga iyo jidhkaaga iyo najaasaadka iyo mustaqdaraadka ka fogow idan haddii muuqaalka sare uu yahay in la dahiro waxaad ka garanaysaa muuqaalka hoose in la dahiraana inuu ka weyn walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.